safarka madaxweyne farmaajo ee deegaanada Puntland xilliga lagu wado inuu madaxweynuhu booqdo magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso. kulankii Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo fashil ku soo dhamaaday iyo madaxweyne Dani oo sharuudo adag ku xiray inuu la shaqeeyo Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana kamid in xilka qaadis degdeg ah lagu sameeyo Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale Roobow, wuxuuna Dani si cad u sheegay inaysan ka mid noqon karin dawlad ay ku jiraan Roobow iyo Mahad Salaad. xogihii ugu dambeeyay ee kulankaas ayaan ku lafaguraynaa. madaxweyne Farmaajo ku wajahan deegaanada Puntland iyo Siciid Dani oo ka shalaynaya dagaalkii uu la galay madaxweyne Farmaajo iyo raali gelin uu siiyay madaxweyne Farmaajo kadib markii khadka taleefanka ay ku wada hadleen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan deegaanada Puntland xilli Xasan Sheekh Maxamuud si xun loogu bahdilay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kadib markii mudaharaadyadii markii soo dhaweyntii loo sameeyay isku bedeshay mudaharaad lagaga soo horjeedo. Shargareeyo faafiyo xogtan dhammaan taageerayaasha wadaniyiinta ee Soomaaliyeed muuqaalkan la Gareeya waxaan ku lafaguri doonaa sidii Xasan Sheekh Maxamuud loogu bahdilay Garowe, fashilka qarka u saaran shirka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dani dhexmaraya iyo sharuudaha la isku afgaran waayay ee Dani ku xiray inuu la shaqeeyo dawladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. dhammaantiin muuqaalka la Gareeya YouTube-kana subscribe saarta gambaleelkana furta kuma haysanidin. aynu ku bilownaa saaxiibayaal, waxaa fashil qarka u saaran yahay shir magaalada Garowe ku dhexmaraya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale hogaamiyaha kooxda Damul Jadiid Xasan Sheekh Maxamuud. kulankan ayaa lagu lafagurayaa xaaladda amni ee dalkeena iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan dagaalka Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo curtay sidoo kale qarxay kadib markii Axmed Madoobe uu sheegay in muddo kordhin uu sameysanayo. waxyaalaha laga wada hadli doona waxaa kamid ah Puntland waan ku qanacsanaynaa dawladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud, gaar ahaan magacaabistii golaha wasiirada, dhaafsiintii ra'iisul wasaaraha jagada ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale qaabka dawladani ay ula falgalayso maamul goboleedyada dalka. waxaana la sheegay in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay isku afahmi waayeen qaabka loo maray habraacii magacaabista wasiirada, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda oo ah wasiirka Puntland ay ka heshay dawladda federaalka Soomaaliya ama ugu saameynta badan. way jiraan wasiirro kale balse wasiirka arrimaha dibadda oo ah kan ugu saameynta badan ee uu doonayay madaxweyne Dani in lagala tashado oo la keenay shakhsi ay siyaasad ahaan isku hayaan, ayuu madaxweyne Dani waxa uu si cad u sheegay in isbedel lagu sameeyo golaha wasiirada. sidoo kalena sharuudaha madaxweyne Dani duwatay waxaa kamid ah in xilka qaadis degdeg ah lagu sameeyo Roobow oo ka tirsanaan jiray dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. sidoo kalena madaxweyne Dani ayaa sheegay in taliyaha NISA laga bedelo Mahad Maxamed Salaad, sidoo kalena qof la isla ogol yahay ay keenaan dawladnimada Soomaaliyeedna laga wada tashado, sidoo kalena far walba oo la qaaday laga wada tashado. balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya, Danina uusan xaq ugu lahayn inuu markaasi ku maamulo arrimaha markaasi isaga markaasi uu go'aaminayo, gaar ahaan magacaabista taliyayaasha ciidamada. balse madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga wada tashado wax walba oo dawladnimada Soomaaliya ay ku socon karto. balse waxa uu sheegay haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aansaday inuu wax walba iska walaaqdo, sidoo kalena markaasi talaabo walba uu iska qaado, inay dhici doonto in kuwa badan oo Roobow iyo Mahad Salaad la mid ah uu jagooyin ku wada tixi doono. taasina waxa uu sheegay Siciid Dani inay markaasi dhabarjab ku tahay qarannimada Soomaaliya. madaxweyne Dani waxaa la sheegay labada qodob ee uu ka foqi waayay inay yihiin magacaabistii Roobow ee wasiirada iyo sidoo kale taliyaha NISA ee loo magacaabay Mahad Maxamed Salaad, xilli uu Xasan Sheekh Maxamuud qorsheyn inuu magacaabis degdeg ah ku sameeyo xilalkana ka qaada taliyayaasha ciidamada, taliyaha booliiska Xijaar iyo sidoo kale taliyaha ciidamada qalabka sida General Odawa Yuusuf Raage. waxaana xogahaas aan helnay ay cadeynayeen xilligan sidoo kalena markaasi aan xaqiijinay in madaxweynaha Puntland uu sheegay in badi taliyayaasha ciidamada ee la magacaabayo laga wada tashado, Xasan Sheekh Maxamuudna uusan waxba iska magacaabi karin. balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku gacan saaray dalabkaasi, isagoo oo sheegay inay ku adag tahay inuu xilka qaadis ku sameeyo Mahad Maxamed Salaad iyo Roobow. taasina waxay keentay in lagu kala kaco shirkii ka socday magaalada Garowe ee u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale hogaamiyaha kooxda Damul Jadiid ee Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba saaxiibayaal, xogaha aan helnay waxay cadeynayaan in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Dani ay khadka taleefanka ku wada hadleen, sidoo kalena dhawaan la filayo in madaxweyne Dani uu ku soo dhaweyn doono magaalada Garowe ee caasimadda Puntland madaxweyne Farmaajo, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed, xilli la filayo Axmed Madoobe inuu imaan doono Garowe. waxaana xilligan qarxay dagaal u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba saaxiibayaal, xaaladda ayaa meeshii ugu adkeyd maraysa, isagoo Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmayo caqabadihii ugu waaweynaa
markaasi dowladnimada ama dowladdiisa mucaaradadii ugu xooga badnayd ee ka hor timaada. waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a in xasan sheekh maxamuud uu Garowe u soo aaday inuu Dani kala tashado muddo kordhintii uu samaystay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, balse Dani ayaa sheegay in Jubbaland ay xor u tahay haddii ay muddo kordhin samaysanayaan iyo haddii ay markaasi aysan samaysanayn oo ay doorasho galayaan. waxa uuna sheegay madaxweyne Dani inuusan wax shuqul ah ku lahayn maamul goboleedka Jubbaland ayna ula mid tahay sida maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. wuxuuna xasan sheekh maxamuud u soo aaday Garowe inuu kaashado Dani si dhulka barida loogu dhufto Axmed Madoobe oo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hore ugu sheegay inuu yahay kansarka siyaasadda Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre ayaa isagana la filayaa in markaasi fooda ay isdaraan Axmed Madoobe. walow Xamse Cabdi Barre iyo Axmed Madoobe haatan xiriir leeyihiin, haddana waxaa la sheegayaa in Xamse Cabdi Barre xasan sheekh maxamuud uu markaasi raacay, sidoo kalena xasan sheekh maxamuud uu wehel ka dhigtay. haddaba saaxiibayaal, xogaha aan helnay waxay caddeynayaan in madaxweyne Farmaajo uu isagana qorsheynayo inuu dhowaan booqdo deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. waxaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Siciid Dani ay samaysanayaan isbahaysi siyaasadeed oo xoog leh, kaas oo lagu lafaguri doono xaaladda siyaasadeed ee dalka, ammaanka iyo sidoo kale wax wada qaybsiga iyo sidoo kale xaaladaha markaasi soo kordhaya, iyadoo isbahaysigan uu si toos ah uga soo horjeedo kooxda Damul Jadiid. waxyaalaha laga wada hadli doona waxaa ka mid ah markaasi in laga dhiidhiyo sidoo kalena markaasi laga hor yimaado damacyada guracan ee kooxda Damul Jadiid, iyadoo ay durba bilaabatay in madaxweynaha Puntland uu gabi ahaanba diido jagooyinka ay hayaan Roobow iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad. sidoo kale madaxweyne Dani ayaa markaasi sheegay in laga wada tashado taliyaasha ciidamada ee xasan sheekh maxamuud uu soo magacaabayo. waxaana laga cabsi qabaa in xasan sheekh maxamuud uu taliyaasha ciidamada u magacaabo shakhsiyaad ka soo goosay dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale shakhsiyaad markaasi dambiilayaal ah oo qabqablayaal dagaal soo noqday sida Mahad Salaad iyo Roobowba uu markaasi u magacaabay. waana mid keentay in madaxweyne Dani uu si cad u dhaho hal laga wada tashado jagooyinka la soo magacaabayo. haddaba saaxiibayaal, xaaladda ayaa alla u sahla, waxaana laga cabsi qabaa in dhinacyadu ay fooda isdaraan, iyadoo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani markanna uu seefta galka kala baxay, sidoo kalena uu si cad u sheegay inaan lala shaqayn karin meel ay wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro iyo taliyaal ciidan ay ka yihiin Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. haddaba saaxiibayaal, saamaynta Puntland ee dagaalka ay la gelayso kooxda Damul Jadiid waa midii ugu adarnayd abid, waxaana la sheegay in Puntland ay tahay maamul gaamuray oo nidaamkii ay ka hor yimaadaan markaasi uusan sii yeemin oo markaasi uu dhulka barida ku dhufto. waxaana la xasuustaa dowlado fara badan oo Puntland ay ka hor yimaadaan sidoo kalena barida dhulka ku dhuftay. bismillaahir rahmaanir rahiim. madaxweynaha waa soo dhaweynaa, waa madaxweynaheeni. waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii. Puntland waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dowladda federaalka, waana qayb xamaasadeeda wadata. dowladdii la shaqaysana waa hirgashaa, dowladdii ka soo horjeensataana ma hirgasho. waxaan leenahay madaxweynaha saa noola shaqaysid baan kula shaqaynaynaa. haddii aadna soo dhaweysatidna gacalkaa baan noqonaynaa oo garbahaagaan gelaynaa. haddii aad iska kaayafogeysidna haddee way dhici jirte oo tii dhici jirtay baa dhacaysaa. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeedna, Soomaaliyey maanta inaan kala santaaglayno, sadbursiimo kala doonno, shacabkeenna sugi mayne sama bixiya qarankeenna. surunkaan doraad eednay aan 90kii qaadnay ka sariigta maristiis.